السلام عليكم. waxaa hadda dhammaan ardayda u bilowday xilli fasax oo aanay tagin gebi ahaanba goobihii waxbarashada. halkaasna waxaa ka soo baxaya fursad badan oo u baahan in la maareeyo lana maamulo. daawade, marna ma isweydiisay in aad xilliga fasaxa meel kaga soo dhalaali karto hawl ku ciishay oo weligaaba kugu taagneed. daawade, ma isweydiisay in aad xilliga fasaxa aad ku qabsan karto wax aanad ku qabsateen intii aad wax baranaysay ama aad wax baranayso. ardayda ayaa marka ay fasax ka helaan goobta waxbarasho, jaamicad iyo meelaha ka hooseeyaba waxa ay u fahmaan xilligan fasaxu in uu yahay xilli nasasho oo aanay saxba ahayn in qofka la fasaxay uu wax qabto. markaas ayaa ay qaadaan wado kasta oo ay aaminsan yihiin in ay ku gaadhayaan nasasho iyo nafisaad nafeed. iyaga oo xaaladaas ku jira ayaa uu dhammaadaa xilligii fasaxu oo ay ku soo laabtaan isla goobtii waxbarasho, isla qolkii iyo isla kursigii iyaguna isla iyagii ah. sida badanna waxa dhacda in ay soo laabtaan iyaga oo sidii ay ahaayeen iyo aqoontii ay yaqaaneen hilmaamay oo hoos u dhac badani ku dhacay, oo iska daa soo faa'iidaysiye u baahan in dib loo cusboonaysiiyo oo aqoontooda update lagu sameeyo. haddaba muuqaalkan waxa aan kugula wadaagayaa qodobo dhowr ah oo kaa kaalmaynaya in aad xilliga fasaxa ka dhigto mid aad wax badan faa'iidaysato adiga oo naftana nasinaya. qodobka koowaad, marka hore isweydii maxaa kuugu baahi badan xilliga aad taagan tahay. maadada xisaabta ayaa ku dhibtay oo aad ka nasan weyday? ma quraanka ayaa aad niyada ku haysaa in aad xafiddo mar kasta oo aad istiraahdo xafidna uma dhaqaaqaysid dhankiisa? ma waxaa jirta maado goobta waxbarasho ee aad joogto aad mar kasta ku hoosayso oo aad ka nasan weyday? mise waxaaba jira faa'iidaysi guud oo aan ahayn maado kugu adkaatay ee ah in aad rabto naftaada oo aad garaadkeeda iyo garashadeeda kor u qaadaysid? mise waxaaba ka dhex guuxaya in aad xirfad ka mid ah xirfadaha nolosha baratid? qodobka labaad, qaado qalin iyo buug, mobile ama kombiyuutarkaaga la soo baxa, waxaana aad qortaa qodobo dhowr ah oo markii aad fakartay kadib kuula eekaaday in ay tahay in aad fasaxan uga faa'iidaysato qodobadaas. qodobka saddexaad, samee jadwal aad ku jaanguyso fasaxa oo ah jadwal aad shaygan kaga soo dhalaali karto ama wax fiican aad kaga bogan karto. taa macnaheedu ma aha in aad jadwalkaa dejinayso ka dhigto sidii jadwalkii waxbarasho mid aad xilligaaga oo dhan buuxisay, waxa aad ka dhigtaa mid aad xillina nafta iyo nasinteeda u soo reebayso, marna aad wax faa'iidaysanayso. waxa aad ogaataa xilligan fasaxu in uu yahay xilliga ay dadku laba mid kala noqdaan. qolada koobaad, qof siibta oo halkii laga rabay iyo meel aan u dhoweyn toona mara oo karkaarka weydaarta. ilaahay ayaa aynu ka magan galnay, waayo xilliga uu qofku fursadda hayaa waa xilliga ay shaydaanka iyo naftuba u sheekeeyaan oo ay u dejiyaan qorshaha fasahaadinta. nooca labaad ee ay ardayda qaar noqdaan waxa weeyaan in ay isbeddelaan oo ay soo laabtaan iyagoo oo aan kuwii iyo kuwo u dhow toona ahayn ee dhismay oo noloshooda wax ka beddelay. ugu dambayn, diinteennan quruxda badan ee islaamku waa diin waxtar oo qofka ku waajibisay in uu xilligiisa ilaaliyo, isaga oo dhanna uu yahay ayaama la isu geegeeyey. sidoo kalena waxa ay diinteennu inoo diiday oo ay xaaraam ka dhigtay wax kasta oo aan faa'iido inoo lahayn ee xilliga inaga ridaya. isku day in marka uu fasaxu dhammaado aad soo laabato adiga oo aan kii ama tii hore ahayn oo wax badan soo faa'iiday soona nastay. haddii aanad ka mid ahayn asxaabta kanaalkan, fadlan subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaadhaan muuqaaladeenna cusub. waa Zakariya Haruuni oo idinkaga tegaya inta aynu muuqaal kale oo xiiso badan ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.